علامات الطفل المصاب بالعين علامتها lagu garto ilmaha yar marka ay ili asiibto. calaamada koowaad kathratul bukaa fi lleyl. haddaad inankaaga yar aad ku aragto habeenkii inuu mar walba ooyayo, isagoo oynayo urdada uu kasoo baraarugayo oo uu kasoo naxayo. calaamada labaad irtifaacu lxaraara. haddii inanka yar madaxiisu uu aada xaraaradiisu ay zaa-id ay u kulushahay. nambarka saddexaad tacakurulmisaaj. hadduu xanaaq badan yahay, wax walbo aada siiso marka uu kugu soo celinayo oo uu kugu soo tuurayo. calaamada saddexaad incidaamu shahiya. haddii cunada uu qaadan waayo oo uu cuntada dhanba ay ku socon weyso. calaamada afaraad nuqsaanu lwasan. in inanku uu isnaaqusiyaa, miisaankiisa uu naaqusaa oo uu baaba-a oo uu caatooba. nambarka shanaad tagyiiru lown alwajh. wejigiisa midabkiisa oo isbedela. calaamada lixaad inxiraafu lcayn inxiraafan khafiifan naxwa alyamiin aw alyasaar. indhaha oo xoogaa yar doorsamaa, aada moodaa inuu yahay yara cawiran yahay sidii weersho oo kale, weersho yar oo meel fog ah oo aan la dareemeynin, isaga oo aada moodo inuu eegayo midig ama inuu eegayo bidix. calaamada lixaad al araq cinda annowm. hurda la-aan. in hurdadu ay ku noqotaa dhib, habeenkii ay hurdadu kasoo dhici weysaa. calaamada lixaad alcinaad. canaad fara badan, madax adeeg fara badan haddii aad ku aragto. calaamadahaas aan soo sheegnay haddii aad inankaaga yar aada ku aragtaa, min laga soo bilaabo inta uu aada ugu yaryahay ilaa iyo 7 jir, 8 jir, xataa 10 jir xitaa, calaamadahan aan soo sheegay mid ka mid a haddii aad ku aragto, lagama maarmaan waxaa ah cunugaasi in ay il asiibtay. qur-aanka la gaar insha allahu tacaala. ilaahay caafimaad taama awlaadaha noo siiyo. asalaamu calaykum.